بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كديب سيدي عاد وهيد وزارة دينتي وقافتها maalinta ama la filayo bisha Ramadaan waxay aad iyo aad iyadoo mas'uuliyadda ka duuleysa ay ku tala gashay inay dhammaan la xidhiidho gobolada iyo deegaanada ama degmooyinka dalka Somaliland iyo guud ahaanba dalalka aan jaarka nahay. sidaa darteed ilaa galabta waxaan ku hawlanayn sidii aan u ogaan lahayn inay bilatay bishii Ramadaan iyo inaanay bilanin. waxaa ka waraysan walaalayaal dalka Somaliland badankiisa daruuro ayaa ku gadaaman iyo gugi oo inoo curtay. sidaa darteed waxaa aad iyo aad u adkaatay in bishii Ramadaan laga arko gobolada Somaliland iyo xuduudaheena. sidoo kale waxaan xidhan la yeelanay dalalkan jaarka nahay ilaa imikana wax wara kama hayaan bishii iyaguna. sidaa darteed waxaan isku daynay inaan caalam islaami anigana usii gudubno sida mar dhaweytaan ku arkayay channelada YouTube-ka meelo ka mid ah hal channel baa wuxuu lahaa Sacuudi Arabiya Masar waxa ay isla ogolaadeen ama culimadoodu iyo Azhar iyo gudida culimada la yiraahdo hay'ad kibaar culamaa Sacuudiya inay intuba aanay arag dalkooda bishii laga arag. sidaa darteed ay bari oo khamiisa u noqonayso 30kii Shacbaan wala buuxin doono Shacbaan 30kii. sidaas iyaguna soo jeediyeen inaguna de ka hor baabaynu arki weynay bishii. sidaa darteed inaynu ku raacna sunnahii Maxamed sunnahii rasuulkeena suuban sallallahu alayhi wasallam oo ahaa suumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. bisha Ramadaan aragti ku sooma aragtina ku afuro. sidaa darteed dadaalkii faraha badnaa ee aan maanta oo dhan isu geynay culimadii dalka iyo dhammaan saxaafaduba ay naga dhul sugayeen waxaanu u sheegaynaa waanu cilaaminaynaa inay caawa tahay bishii Shacbaan 30koodii in la dhamaystirayo oo bari oo khamiisi ay tahay 30kii Shacbaan ee aanay soon ahayn. waxaanu soomi doonaa haddii alla yiraahdo cid Ilaahay gaarsiiyo Ilaahayna gaarsiiyay maalinta Jimcaha amba habeenka Jimco soo gelayo maalinta Jimcahana soonkii bisha Ramadaan kowdeeda ay inoo noqon doonto haddii alla yiraahdo. sidaa darteed waxaanu dhammaan uga mahad celinaynaa culimada iyo saxaafadda madaxa bannaan dalku leeyahay intaba sidii ay u sabrayeen ay nula samreen muddada dheer runtii gaadhay ilaa caawa 9kii barkii inayn go-aanka wasaaradda soo saarno. aad iyo aad baa u mahadsantihiin. ilaahay waxaan ka barya ilaahay inuu bisha Ramadaan ina gaarsiiyo. ilaahay waxaan ka baryaynaa ilaahay subxaana watacaala cudurrada faafaya ilaahay inaga duwo. ilaahay waxaan ka baryaynaa subxaana watacaala inaynu noqono ummad iskaashata oo walaalo ah oo isu naxariisata nabadooda ka shaqaysa. ilaahay waxaan ka baryayaa bisha Ramadaan inuu inoogu biladnooto khayr iyo barako iyo ijaabo iyo caafimaad iyo nabadgelyo dhexdeena. dowladda Somaliland marnaba masaajidada ma xidhin. dowladda Somaliland waxay kula talisay bulshadeeda qiimaha badan in ay u bannaan tahay si culimaduba ay fatwoodeen inay u bannaan tahay mar haddii cabsi jirto caafimaad hadday jirto baqdini in ay ku ekaadaan guryahooda ku tukadaan. dad fara badan oo tii raacayna way jiraan, dad badan oo masaajidada ku tukanayna weli way jiraan. annagu fariintii talada ahayd ee naseexada ahayd ee tala dhakhtareed ahayd ayaan weli gudbinaynaa. waxaanu leenahay maadaama faralkii isaga laftiisa la yidhi guryaha lagu tukado dee sunnana maxaad u malayn. waxaan see rajaynaynaa ilaahay inuu caafimaad dhammaantiin inuu wada siiyo, taxadirkana la yeesho oo dadku ay naftooda badbaadiyaan. ilaahayna ka baryaan subxaana watacaala inuu ilaahay subxaana watacaala bisha gudaheedaba ilaahay caafimaad inagu soo dejiyo si aynu si qoto dheer ama si ballaadhan aynu salaadaheennii iyo jamaacadeennii iyo jimcadeeniiba aynu xoog u gudano haddii alla yidhaahdo. marka ilahay waxaan ka baryayaa ilahay inuu caafimaadka inoo siyaadiyo. haddii ay dhacday dadka qaarkood in ay go-aansadaan in ay Ramadaantii ay taraawiix tukadaan waxaanu ku talin lahay in ay soo gaabiyaan oo ay si kooban oo aad u yar ay u soo koobaan. waxaa kaloo ku talin lahay
qof kastoo shakisan oo duray qaba ama qufac leh ama riixan leh inuu ka joogo masaajidka si aanu waalihiisa kale aanu u fidnaynin ama aanu u dhibin waayo rasuulkuna wuxuu laa darara walaa dirar haysla dhibina idna hays dhibina dadkana ha dhibina sidaa darteed mar haddii xataa weli masaajidkii dadkii ay kusii qulqulayaan waa bal talaadana ku darsado oo waxaad yeeshaan isbadbaadiya ilaahayna subxaana badbaadada wiina faray oo naftiina haligina waana yidhi ma hubno in masaajidka laga soo qaadaya xanuun laakiin wuu u badan yahay waayo isu dhawaanshihii baa isugu dhow waa la isku neefsanayaa dee haddii aad tiraahdo oo kala fogaadana waa dee adigoo sii ballaadhiy oo ka dhig haddana idoo salaadii ama sunnihiiba marka horeba waa ha sunne in haddana tidhi waan sii kala fogaanayaa oo midna mitir buu istaagaya midna 2 mitir oo waxyaalaha runtii ilaa maanta caalamul islaami ay ku muransan yihiin dad badan baa waxay hala tago jaamacadii laakiin hala kala fogaado qaar baa jaamacadii hala tago hala xidho face mask iyo cafuufkii hala xidho wala waxay leeyihiin yaaba la sujuudino haddii meeshaad ka shakisan tahay rukuucun ku ceel haddana oo macna sujuudeed u xambaaro marka nooc waxaa soo gashay in diinteennii qof qolba in goosanayso ama dhinac ka eegayso marka waxa fiican culimada in la weydiiyo